غير الداعي نور سلامي مرحبا اهلا وسهلا نور سلامي مرحبا اهلا وسهلا نور سلامي مرحبا يا خير الداعي نور سلامي نور سلامي نور سلامي مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا يا خير الداعي نور سلامي نور سلامي aradaha Kenya International halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa insha Allah gudoomiyaha midowga culimada Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha golaha sare culimada ahlus sunna wal jamaa sheekheena qaaliga ah Sheekh Aadan Macallin Sugow Suufiyare sheekhiga qaaliga soo dhawow alxamdulillah baa mahadda iska leh ilaahiga noo kulmiye buqcada noo kulmiye waa mahadda iska leh sheekheena qaaliga uu noogu imaaday waa mahadda iska leh aragtidiisa dad badan baa xiiso u qabay maanta oo intaan ku kulannay maalmaha kale may nooga duwan tahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin sheekheena qaaliga ah aan aad u jecelnahay sheekh Suufiyare soo dhawow wadanka Kenya ku soo dhawow saydi soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow kalgacayl ku soo dhawow insha Allah caafimaad baan ku rajaynaynaa insha Allah wax badan oo kala faa'iidi doona maadaama waqtiga uu yar yahay taymka aan haysanana uu yar yahay sheekheena uu daalan yahay qodbad dheer kama gaari karno qodbad dheer ninkii rabo waa dib baan u dhiganaynaa insha Allah magaaladeena markaan tagno ayaan qodbada kale noo ahaanaysa sheekheena Sheekh Aadan soo dhawow waxaan ku kulmanahay duruq suufiya ahlu sunna wal jamaa dhamaan ashraafta macallimiinta daakiriinta culamaa diinka dhamaan aan meeshan ku kulansannahay sheekheena qaaliga ah jaliilka ah Sheekh Aadan Sugow Sheekh Suufiyare ku magac dheer ayaan soo dhaweynaynaa ma sha Allah taala dalka Kenya gaar ahaan Nairobi soo dhawow sheekheena gacan furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow إن شاء الله تعالى أهل السنة قر الله كديو خيرك الله نوافجيو ميل بجوكت قر الله كديو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاوة ماشي محاو تاجن هاي سودوين تشيخنا شيخ آدم معلن سجو شيخ سوفيارة أهنا قدوميها مدوجة علماء الصوماليات أهنا قدوميها قلها صار علماء الصوماليات أهل السنة والجماعة maanta galab dheer meeshan soo istaagnay waxaan soo dhaweyntiisa sheekh waxaan ku leenahay wadankaaga labaad ku soo dhawow culimada meesha joogto xirtaada joogto waxaan ku leenahay wadankan ku soo dhawow Kenya wadankaaga labaad marti kama tihid annaga meesha ku joogno insha Allah taala iyo culimada ku soo dhaweysay maanta waxaan u taaganahay sheekheena soo dhaweyntiisa waxaan leenahay sheekh soo dhawow marwad mar saddexaad waxaan leenahay Kenya ku soo dhawow wixii war ah iyo ma kalimadada insha Allah taala aydan waa noo dambeyn doontaa rakan waa hadli doona waxaan leenahay sheekh soo dhawow Kenya مرة واحدة مرة ستة وحنا لنا شيخ آذن معلن سوق شيخ سوفيارة كسر كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جزاكم الله خيرا وآذن رنتي والله حوسنا يا وقت قدر وعاد سويسين مقامات كلا دون وعاد لذهين أكتيد كوا وين وعاد أنا يسود وين يسود آذن والله حوسنا يا لكن وحن عندنا كوكان عسنا هي جعلك إلهي درتي وأنا سقبنا إنه كنا ينكوكان عسنا ونرال لكو هاي عن آد وعذر دارنا يا أهل بيتك رسولك صلوات الله وسلامه عليه يا أعلام الأمة ومدن علماء ذي أكابرتها هي إن فردية كزو زيارة مدنا إن حلكن وسودوين يجوسوا يستاجن آذن وعذر دارنا يا آذن وعذر دارنا يا لكن وجيدي إننا أركان كفر حسنة قلبي إنه وأن الله درتي أجعل هاي وأن رجينا يو إن المال مالمها كم ذا وري مالمها قدرا وأن نصامر الدونا كم ذا إن جعلك نبحث أن رجينا يو قوم تحابوا بحب الله إلهي درتي دتك يسجعل وحيدين تين النور شيء قرآن كن نور شيء سنة النبي كان النور شيء عليه الصلاة والسلام على منابر من نور ما أنت مقدقة عريرقة يكربضة دتك أي هيسو أنبياء أي مرايان أي نول بقوليه هي اللهم نفسي أوليه هي دتك لا إسكبده
nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inta meel walba lasoo maro nebi aadam loo tago nebi nuux loo tago ambiyadii lasoo wada maro nin waliba uu ka cudur daaranayo maalintaas sha'nigeeda nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay anaa laha maalintaas dadka kuraasta nuurta loo dhigayo wuxuu nabigeenu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka ilaahay dartii isu jeclaaday inay yihiin marka jaceylkaan ilaahay dartii isu jecelnahay oo aan hilow u qabo wejiyadiin inaa arkaan mar kale idinkaga mahad celinaya inaad igu saacideen oo aad nukhbadii ii soo hormartay anoo inta kale oo aad wakiil ka tihiin oo gadaashiina jirtayna sidoo kale ugu mahad celinayo waxaan idiin soo waday oo aan wakiil ka ahay ummaddii iyo dalkii aan ka imid iyo culimmadii khaasatan culimmadii soomaaliyeed oo aan ka soo tegey oo aan nin aanan u dhehaynin jamac idiin soo wada salaamaysay waxaad iga guddoomaysaan inta aad idinku u qabtiin oo hilow oo kale oo aad isdhihi doonna inay salaantooda ay iga wada guddoontaan waxaan u soo baxay camal iyo shaqo inaan waxaan u soo baxay inaan camal iyo shaqo idinla wadaago ilaahay idinkiisa oo ay ugu horrayso midnimada ummaddan sidaan uga shaqay lahayn waxaan u taagannahay midnimada ummadda gaar ahaan midnimada culummada soomaaliyeed oo baahid weyn loo qabo sida aad ogsoontihiin diinkeennu mowqifkuu ka istaagay iyo nahjigii salafu saalix meeshay ka istaageen aad ogsoontihiin dhammaantiinba jamaacadu inay raxmad tahay uu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wayadullaahi cala aljamaaca ilaahay naxariistiisa iyo kaalmihiisuna inay jamaacada la jirto sidaasaan meel walba inaan risaaladaas gaarsiinaan u soconnaa khidmadaan u soconnoon u nimidna waa ka wada hadli doonnaa si camaliyan aan uga wada hadli doonnaa si gaargaara iyo si guudba waxaan idin leeyahay inaan idin mahad celiyo wax kaloo aan maanta iga kiin furan ma laha man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh sida nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam mahad celintiinnana waxaan idin leeyahay sida aad aniga runtii ii farxad geliseen oo aad niyaddiinna iyo qalbigiinna iyo wujuuhdiinna wada nuuraysa aad iigu farxad geliseen maalmaha loogu murug badan yahay ilaahay idinka farxiyaan idin leeyahay insha allahu